asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal soo dhowaada caawa haddii alla idmo waxaanu tusi doonaa sida wirelesskaaga magaciisa ama SSID-giisa aada u qarin kartid. waxaanu tusi doonaa sida loo qariyo laba ruuter ayaa la qarin doonaa. marka wirelesska ayaan ka dhigi doonaa waxa la yidhaahdo hidden ayaan ka dhigi doonaa, waynuna qarinaynaa marka wirelesska. saa daraaddeed waxaa dhacaysa waxa la yidhaahdo wirelesskaagii in aanay dadka kale aanay maaragtay arki karin, adigu un aa kusoo xidhmi kartid oo maaragtay magaciisa aad garanaysid iyo basswordkiisa. marka koowaad waxaan tusayaa routerka koowaad. waxaa soo gelaysaan halka aad aragtaan ayaa soo gelaysaan, waxaa qoraysaan 192.168.1.1. qaar ayaa 192.168.8.1 ah. marka uu sidaa kugu soo baxo waxaa kusoo baxaya macluumaad tiro badan. wireless ayaa ku dhufanaysaa. wireless passwordka wuxuu ku weydiinayaa, waa taqaanaan password iyo username. password iyo username markuu ku weydiiyo waa inaa passwordka iyo usernameka gelisid. kadib waxaa sii tegaysaa bartay ku taalo wireless markaa tagto waxaa sii tegaysaa barta ay ku taalo guest access baa tegaysaa. saa daraaddeed SSID broadcast meeshay ku taalo enabled hadday ku tahay magaca wirelesskaaga waa la arkayaa, haddii kana disable baa la dhahaysaa. hadhow markaa dhammaysana waxaa dhahay save changes ayaa dhihi doontaa. marka saas ayaa loo bedelaa oo loo bedeli karaa. marka mid kale ayaynu geli doonaa isagana 192.168 saasoo kale. kaa kale markaynu intaa ku qorno isagu way kala yara duwan yihiin. ruuteradu qaar ayaa kala yara duwan, marka xoogaa yar bay aan badnayn bay kala duwan yihiin oo maaragtay isku mid ma aha. marka midkaaga waa inaad baadhid oo aad eegtid ka markaa adigu aad isticmaalayso. so mid baan ku xidhmaynaa kaas lastig oo kale kusoo xidhan. maraan kusoo xidhanno isagu waa invisible, kasoo qaad waa hidden. so markaa soo gasho usernamekii adminkii aad geliso routerka aad inter soo dhahdo waxaa sii tegaysaa halkaas setupka markaad gashana waxaad kasii gelaysaa gudaha usii gelaysaa. markaa sii gasho batankaas ayaa sii taabanaysaa. markaa sii taabato waxaa kusoo baxaya macluumaadkiisii oo dhammaystiran ayaa kuusoo baxaya. markaas macluumaadkiisii oo dhammaystiran ayaa kuusoo bixi doona. badhankaasaa kusii dhufanaysaa. kadib wakaas hoos baa u degaysaa. hoos markaa u degto halkaasaa ka dhigaysaa visible iyo invisible. visible waa ha muuqdo, invisiblena waa yuusan muuqanin. marka visible invisible hawakaas. marka halkaas weeyaan visible invisible. markaa dhammayso kadib waxaa dhahaysaa apply ayaa dhahaysaa. marka sidaas oo fudud weeye marka aad rabto inaad bedeshaan wirelesskaaga waxa la yidhaahdo hidden inaad ka dhigto. hadhow markaa kusoo xidhmayso isaga caadiyan waxaa la dhahayaa ad ayaa la dhihi doonaa. hadhow markaaad ku xidhmaysaan waxaad tegi doontaan bartan. kadib waxaad ku dhufanaysaan waxa la yihahdo ad ayaa ku taala hidden network, connect to hidden network. wuxuu ku leeyahay mid networkyada la qariya ama networkyada qarsoon ku xidhan. ad baa dhahaysaa, magacii wirelesskaaga gelinaysaa iyo basswordkiisii. waa intaas oo keliya saaxiibayaal. aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin saaxiibayaal daawashada casharkan. asalaamu calaykum.